isagoo 8 sano jira ayuu dilay 3 ruux kuna darso laba kamid waxay ahaayeen qoyskiisa da ahaana inta uu dilay waxay ka yaraayeen 1 sano waxaase ugu daran markii la geeyay miiska baaritaanka oo ay booliisku su'aalo weydiinayeen si ay u helaan xaqiiqda waxa uu u sheekeeyay dhacdada sida ay u dhacday taama uusan qarin hal shay wuxuuna u hadlayay si qof caadi ah qof aanan waxba dilgeysan السلام عليكم مقعق وستار عبد الرحمن أمرجنت وويل كل شيء قبل كبيغوسار بيهار دلك هندية سنة كمركوها كون سجال بقول سجاشن يسيديد لكن قوس كيس هي أسوق جوري قبل كلا وحنا هاين قوس دنيرة وفقير مالميه سينتو بدنا وحا وكسوقاتي رفاد يا فقري تاسو آخر كي صوبتي إن والدكي وكربو إسكولكا سوا دقلا وجد تانويل كوحا يكوردين وقاضو عقد نفسي تاسو كدكتي إنو كهرو أرضي أساقي سأها إساقو نقدمي دتك دنعا لبسدا xitaa waalidkii gaar ahaan aabihii uu mar walba canaanan jiray qisada dilkiisu waxa ay bilaabatay sanadkii 2006 kadib markii uu dilay walaashiis yar oo da ahaan jirtay 6 bilood wuxuuna jaanis ku helay iyada oo jeefta dabadeed waxa uu kaxeeyay siringi cidla ah kadibna wuu dilay intaa kadib si uu hooyay inay dhimatay waxa uu soo qaatay bir kadibna madaxa ayuu uga garaacay intuusan soo aadin guriga ayuu ku tuuray meel cidla ah wuxuuna dusha ka saaray caleemaha geeda iyo caws dhinaca kale qoyska gabadha oo bilaabay raadinteeda ayaa markii dambe waxa si cad u sheegtay أمرجنت إنه دلق بدأ ولاشي وحنقي ماشي ميت كيدو يالي inta kadib qoysku ma aysan gaarsiinin arintii booliska taa badalkeedana waxa u qariyeen si faamil ah si aan loo xirin wiilkooda ama dilkii xigay waxa uu ahaa wiil ay ina adeer ahaayeen oo jiray 9 bilood waxa uu soo galay guriga adeerkii iyadoo ay maqan tahay hooyadii dhashay wiilka wuxuuna qaatay wiilka kadibna wuxuu ku tooray haraka fog guriga intuusan ku soo laaban guriga waxa shaki galay waalidiintii kadibna waxay bilaabeen baaritaanka wiilkooda inta kadib markii la ogaaday in arintu uu ka dambeeyay Emergent waxa ay qoysku haddana qaateen in aan booliska arinta la gaarsiin waxayna doorbideen in arintu aysan ka dhax bixin qoyska taasoo wiilku noqotay inuu ku dhiirado falka 2007 ayuu haddana mar saddexaad ku dhiiraday dil laakiin markaan way ka baxsan tahay qoyskiisa dilkii saddexaad iyo kii ugu dambeysay wuxuu ahaa gabar lagu magacaabo Kuusha Bow gabadh ay dhaleen cid ay daris ahaayeen oo jirtay da ahaan 6 bilood hooyadeedna waxayna ku mashquulsay hool ay markaa hayday markii ay howsha soo dhameysatay maysan arag gabadheedii baaritaan dheer kadibna waxa laga waayay tuuladii oo idil laakiin tuhunka ugu badan waxa uu fuulay Emergent kadib markii gurigu u yimid gacmihiisa oo dhiig leh laakiin reerka gabadha ayaa markaan u dacwooday inkasta oo booliska xitaa oo arintan aamini waayay Emergent ayaa dib dambe afkiisa ka qirtay isaga oo yiri waxaan arkay iyadoo hurada kadibna waxaan geeyay meel banaan ah waxaan ku dhuftay dhagax ilaa ay naftu ka baxday qirashadaas kadib booliska ayaa ka xaystay si ay u baaraan sababta ku kaliftay laakiin waxa laga waayay wax war ah intaas kadib waxay siiyeen xogaa macmacaana si ay ugu sasabaan inuu sheego sababta intaa kadib waxa uu ugu jawaabay si degan cabsi la'aan ah isagoo u sheegay inuu u qaaday duurka kadibna uu ku dhufanayay dhagax marka laga reebo wiilkii uu ku tooray harada laakiin askarta ayaaba aamini waayay sababtoo ah wiil yaro buskud cunaya haddana si degan ugu sheekeynaya sida wax u dhacayn waxayna doorbideen inay u geeyaan dhakhtar cilmi nafsi ah dhakhtarkii ayaa sheegay inuu qalbi ahaan u murugeysnaa xilliga uu falku sameynayay xitaa arintan markii uu sameynayay waxay u ahayd mid uu ku farxay asiga sida laga soo xigtay mareegta Indian Express dhakhtarkii ayaa u sheegay in wiilku wax qoomama ah uusan dareemin xilligii su'aalaha la weydiinayay sidoo kale waxa uu sheegay in niyad ahaan uu dareemay farxad marka uu dilayay caruurtii yar waxa uu warka ku soo gabagabeeyay tani waa xanuun nafsiyan ah inta kadib Emergent waxa loo dhaadhiciyay college lagu tarbiyeeyo caruurta oo u ah hooy iyo deegaan sababtoo ah sharciga Hindiya ayaa ah in aan la xukumi karin caruur ama wax ka yar da ahaan 18 sano muddo markii uu ku jiray xarunta college-ka 2016 ayaa laga fasaxay marka uu gaaray da ahaan 18 sano haatana lama oga halka iyo meesha uu ku nool yahay dabadaawade sidee waragtaa qisada wiilkan yar maxaase ku tilmaami lahayd inay ku kaliftay inuu ku go'o wiilkan aad ka yar arinta hadaba daawade inagula wadaag ra'yigaaga qaybta commentiga mahadsanid